Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Videogan maanta waxaynu kaga hadli doonaa caseskii ama radiology caseskii hore inoogu socday. Casekan maanta waxa weeye waa case chest ah ama chest x-ray. Patientka historygiisu haddii aan idin sheego waxa weeye waa 75 jir, male ah ama nin. Wuxuu uu ka cabanaya waxa weeye wuxuu leeyahay ama symptomskiisu waa productive cough buu leeyahay. Sidoo kalena wuxuu leeyahay shortness of breath ama neeftii oo ku adag, iyo sidoo kalena elevated white blood cells and CRP. Laboratory findingskiisa in infectionkiisa uu kacsan yahay marka ama white blood cellskiisu. So waxa la qaaday marka chest x-ray baa la order gareeyay. Waxa laga qaaday PA iyo lateral chest x-ray. Marka waxa aynu halkan ku discuss gareyn doonaa marka findingska ama waxyaalaha aad ku aragtid sawirkan chest x-ray-ga ah. So marka ugu horeeya waxa muhiim ah inaad ogaatid in chest x-ray-gu uu yahay examinationska ugu caansan ee la sameeyo radiology department-iga. So that's why ay muhiim u tahay. Horena waa inuga hadalnay videoga ugu horeeyay ay actually aan soo geliyo YouTube channel-kan. Approach-ka la maro marka la interpret gareynayo chest x-ray-ga, because waxyaalo badan baa ayaad misgareyn kartaa marka haddii aadan garanayn approach-kii saxda ahaa ee la maray. So hadda haddii aynu dib ugu soo noqono case-keenan, waxaad u jeedaan in ay jirto consolidation ku yaala sambabka midig. So waxaa jira marka consolidation ama in ay caddaatay marka area-dii sambabka ay noqotay marka dense ay noqotay. Sida aad wada ogtihiin, usually consolidationka waxaa la yiraahdaa marka alveolar spaceski uu sambabku u lahaa oo sida normalka ah hawo ay ku jirto ama gas ay ku jirto, marka meeshii laga saaro oo ay ka buuxsamaan marka fluid uu ka buuxsamo ayaa loo yaqaanaa marka consolidation. So consolidation waxyaalo badan baa ayaa sababi kara marka. Laakiin ka ugu caansan especially marka patientku uu qufac uu leeyahay ama productive cough uu leeyahay waxa weeye haddii infection process uu jiro. So haddii marka findingskan aan ku soo noqono, waxaa jira ayaynu dhahnay consolidation waxa loo yaqaano. Sidoo kalena waxaa jira waxa loo yaqaano air bronchogram. So air bronchogramsku waxa ay typical findings ay u yihiin lobar pneumonia haddii patientku marka pneumonia uu qabo. Air bronchogramsku waxa weeye marka ay ka buuxsanto alveolarkii marka hawadu ay ku jirtay marka fluid uu ka buuxsamo oo airtii meesha laga saaro, then waxa ay hawadii ay ku soo hadhaa marka ay ku soo hadhaa bronchioleska yaryara. So marka bronchiolesku waa marka ay ka dhex muuqdaan marka ay ka dhex muuqdaan consolidationkii ayaa waxaa la yiraahdaa air bronchogram. Marka sign waxay u yihiin marka pneumonia ayay u yihiin. Okay, so sidoo kale waxaad u jeedaan haddii aad si fiican aad ugu fiirsataan in fissurkii, especially horizontal fissurkii sambabka midig u kala qaybinayay upper lobe iyo middle lobe u kala qaybinayay in uu si fiican marka uu u muuqdo. So that's why loo yiraahdo marka lobar pneumonia, because lobe kaliya ama qayb sambabka ka mid ah kaliya ayay ku koobantahay. That means lobeski kale ama qaybihii kale sambabada marka uma ay gudbin sida middle lobekii iyo lower lobekii. So waxaad ogtihiin sambabka midig inuu leeyahay 3 lobe oo waxa kala qaybiya horizontal fissurka iyo minor fissurka ama oblique fissurka. Marka horizontal fissurku waxa uu kala qaybiya marka right upper lobe iyo right middle lobe. So sababta aynu u oranayno marka case-kani waa lobar pneumonia waxa weeye maadaama oo fissurkii aanu dhaafin marka consolidationka aanu dhaafin oo dhinaca kale aanu u gudbin marka. So findingska kale aad u jeedaan waxa ka mid ah waxa loo yaqaano peribronchial coughing. Peribronchial coughing waxa weeye marka fluidku uu ka buuxsamo ama exudative fluidku uu ka buuxsamo marka hareeraha bronchioleska ama bronchiga, kadibna bronchiga si fiican loo arko. So this is a classic sign marka of pneumonia ama lobar pneumonia. Okay, haddii
aynu usoo noqono marka lateral chest x-ray-ga oo isagana la qaaday. Okay, so lateral chest-ka haddaad si fiican ugu fiirsato isagana waxaa jira maadaama oo hore aynu usoo dhahnay consolidationku waxa weeye marka x-raydu loogu talagalay inay noqoto madow, sanbabku ay noqoto marka caddaan ay noqoto ama radio opaque ay noqoto. So waad ujeedaan again inuu jiro right upper lobe consolidation uu jiro, sidoo kalena air bronchogramskii ayaad si fiican aad ugu jeedaan sawirkan aad ugu jeedaan. So marka casekan waxaa loo diagnose gareeyay inuu yahay marka right upper lobe pneumonia. So marka aad ogaato marka caseska waxa uu yahay ama findingskaaga aad soo saarto, sidoo kalena waxaa very important ah inaad check garayso haddii waxyaalo kale oo findings ay jiraan. Keliya maaha inaad ku koobnaato waxa ugu weyneed meesha ku arki karto. Sidoo kalena haddii aad u fiirsato marka claustropenic ankle-ka waxaa jira minimal ama xaddi aad u yar oo marka pleural effusion ah. Marka aad la barbar dhigto marka sanbabka midig a little bit ayaa claustropenic ankle-ka marka uu go-an yahay. So a small right side pleural effusion ayaa Allahumma salli Maxamed ayaa jira. Haddaad si fiican ugu fiirsato sawirkan lateralka ah ayaa si fiican u indicate gareynaya marka. So marka casekeenu waxa uu noqday right upper lobe pneumonia. Aad baad ugu mahadsantihiin inaad videogan aad daawatid. Insha Allah jimcahan soo socda we will discuss anatomy-geena baynu sii wadi doonaa. Inta ka horeysa stay safe. Salaamu calaykum.